سعداء مش حبتك دعيسي كلا جرا صاحب بخاري كلا جرا Kismaayo Jubbaland Soomaaliya halkan waxay ahayd inay noqoto meel amni badan meel ay carruurtu ku barbaari karaan si nabad ah oo ayna saamaynin dagaalka sokeeye ee Soomaaliya balse wixii halkan ka dhacay bishii Luulyo ayaa burburiyay dhalanteedkaas magacaygu waa Jamaal Maxamed Cismaan waxaan ahay suxufi Soomaaliyeed Kismaayana yimid maalmo ka hor weerarka aniga oo ku rajo weynaa inaan ka warramo siday magaaladan ku noqotay iftiinka nabadgelyada dalkayga balse Soomaaliya wax sidaas u sahlan ma aha So amazing when you come to Somalia, you just enjoy being an everyday person. I love it here. I don't know how many politicians can do this, but I can. markii aan Kismaayo u soo duulay bishii Luulyo waxaan garab fadhiyay qof tusaale u ah rajadaas aan ka qabay gobolkan ku yaala koonfurta Soomaaliya And me, Hodan Naleya, the founder of Integration TV and a proud Somali sharing Somali stories all over the world. Hodan Naleya waxay ahayd sidaydoo kale suxufiyad Soomaaliyeed iyadoo ku barbaartay Canada balse go'aansatay inay ku laabato dhulkii hooyo si ay u iftiimiso horumarka wanaagsan ee halka ka jira Hodan iyo kuwa badan oo kaleba waxaa dhiirigeliyay jawiga nabadeed ee Kismaayo magaaladan kama dhicin weerar weyn oo ay al-shabaab geysatay 7 sano ee la soo dhaafay waxay doorasho halkan ninka hogaamiye Axmed Madoobe waa madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ka soo laabtay safar dibadeed halkan waa laga jecel yahay maadaama uu dhaliyay bulsho xasiloon iyadoo uu jiro dagaalka al-shabaab kooxda islaamiyiinta ah ee ugu awood badan Afrika xulufana la ah al-qaacida badan ayaan waraystay al-shabaab iyadoo la aasaasay 2006 al-shabaab waxay maamulaan qaybo badan oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya oo ku jirto qayb ka mid ah Jubbaland waxay doonayaan inay afgambiyaan dawladda Soomaaliya dhisaanna mid ku salaysan aragtidooda diinta Islaamka tani waa isbeddel weyn oo uu gaaray shakhsi isaga ku dhiisa markii horeba ka tirsanaan jiray dagaalyahanadaas islaamiyiinta ah xaslada qofkii nabad iyo amni u keena way garab istaagayaan saas leeyahay qofku inuu cadaalad ka helo nabad inuu helo amni inuu helo horumar inuu jiro dawladnimo inay darasabta sharci iyo kala dambeyn tani waa isbeddel weyn oo uu gaaray shakhsi isaga ku dhiisa markii horeba ka tirsanaan jiray dagaalyahanadaas islaamiyiinta ah sanadkii 2009 ayuu ka soo horjeesaday saaxiibadiisa shabaabka waxaan isku diiday waxay ahayd siday u socdaan iyo diinta sheeganaya markaan war khalad kala jira waxaan islaamku ma qabo dib ha looga soo noqdo waxaan aan xaqiijinaa waxa uu yahay oo ay diideen sabab loo si saaxiibi karaa ma jiro taasaakeena waa taan ilaa hadda rabo inaan ula dagaalamo dagaalkoodii ugu sii jira markaa mid iga dhamaanaysa maaha markii aan ciidanka Jubbaland u raacay mid ka mid ah hawlgalladooda dibadda Kismaayo way ii muuqatay siduu dagaalkan u haleelay rayidka in dareensannahay inayna noola hadli karin in badan cabsi aad iyaga ka qabtaan awgeed ciidamaduna waxay ku tala jiraan mar walba inay idiin adeegaan idin ma aha cadow idinka waxay idin yihiin wehel ma awood inaan warbixin bixiyo ma awood maxaa yaad ka baqaysaa markaa nafteeda u baqaya ciddaa ka baqaysa laakiin ma sheegi karto waa arrin adag in la sugo amniga goobaha miyiga sida halkan oo 50 kiiloomitir u jirta magaalada Kismaayo balse inaysan weerarro ka dhicin magaalada ayaa ka dhigan in qorshaha amniga ee Madoobe uu yahay mid shaqaynaya halkan waa xabsiga aadka loo ilaaliyo ee Kismaayo kaasoo lagu hayo kuwa ku eedaysan inay yihiin dagaalyahano al-shabaab qaarkood maxkamad lama soo taagin weli Ilyas wuxuu ku eedaysan yahay inuu dilay nin daaci al-shabaab ahaan jiray markii dambena kooxdaas ku hurmay maxaad ku gashay maxaa ku geeyey ma noola sheegayn kartaa ninku dhalinyaro markuu yahay sidiisaba kooxaha banooniga waad aragtaa ninba koox buu jecel yahay ninba koox buu aad u xiiseeya u daneeya hadda marka waddanka sidiisaba laba dagaal baa ka jirto ima dawladda iyo ima shabaab wax kale u dhexeeya ma jiro balse dadka qaar
ayaa beddela dhinaca ay la jiraan. Waxaan waa unug aad u tababaran oo ka kooban kuwa horay u ahaa dagaalyahanno Al-Shabaab. Waxaan ula kulmay si aan u ogaado sababta ay uga hor yimaadeen saaxiibadoodii hore. taliyahoodu waa Cabdiqaadir. annaga kaskeena isku geynay annagaana codsana inaan meeshan fadhano oo wadankeena adugu ka qabano lama qasban waalid iyo anaga ma kulmi jirin xaasna weligii hataa ma shukaansan jirin aan ka xishoon jiray laakiin inta markaa imaaday waa wareereebo maanta Cabdiqaadir waa fasax waxaana uu u jihaystay dhanka gurigiisa si uu u soo arko qoyskiisa isagoo wada nacnac iyo kubad cusub oo uu carruurta u soo gaday. xaaska Cabdiqaadir way ku faraxsan tahay inuu ninkeedu u soo wareegay dhanka dawladda. isbedel weyn aan ku arkay shabaab markuu la shaqeyn jiray hadda dawladii markuu u shaqeynayo maasha Allah tahay shabaab dib aan ku qabnay 7 bilood 8 bilood maqnaana duurku ku jira dagaal uu aaday kun shilin lagu musiinay beel ilmaha malahan rafaad. waa maalin jimco ah madaxweynuhuna wuxuu ka qayb galayaa salaada. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. annaga oo duubayna qoysas ku damaashaadaya xeebta ayaan maqalnay jug weyn kadibna carruurta waxa ay bilaabeen inay kala cararaan iyagoo muujinaya cabsi kuna dhawaaqaya qarax. isla markaas waxaa meesha ka baxay 7 sano oo ay Kismaayo ku naaloonaysay amni iyo xasilooni. muuqaalkani waa qaraxii oo ay CCTV-du qabatay. wuxuu ahaa weerarkan mid Al-Shabaab ku qaaday hoteelka Madiina halkaas oo ay dad ku shaahaynayeen. qof isqarxinaya ayaa gaari qarax ka buuxo ku dhuftay albaabka hoteelka. qadar yar kadib markii sawirradan la qabtay 3 nin oo hubaysan oo Al-Shabaab ka tirsan ayaa gudaha u galay hoteelka. dibna waxaa bilowday gumaadka. sawirqaadahanaga ayaa u orday jihadii xabadda iyo qaraxa miinada aan ka maqalnay isaga oo ay weheliyaan darawalka iyo waardiyihii nala socday. mid kala dhacay هين عليه maxamed inta nidaamniga ku sugnaa ودو كل ساعة مش حبتك دعيسة gaari kala jira كلا جرا صاحب بخاري كلا جرا waraga fralbok dagaalkii dhex maray raggii Al-Shabaab ka tirsanaa iyo ciidamada dawladda ayaa qaatay 12 saacadood. waxaa ku dhintay 26 qof 56 kalena oo ay ku dhaawacmeen. 3 ka mid ah kuwii weerarka geystay ayaa iyaguna ku dhintay midna nolosha ayaa lagu qabtay. mid ka mid ah dadkii ku dhintay waxay ahayd gabadhii aan diyaaradda kula kulmay Hodan Naaleeye oo xaamilo ahayd xilligaas waxayna ka tagtay 2 wiil. ummadda Soomaaliyeedna kulligood aan leeyahay sabiriibaan Allah idinka siiyo aanan u ducayno. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. weerarka ayaa wax weyn u dhimay wax kasta oo uu madaxweyne Madoobe ka shaqeeyay. waxaa hoos u dhacay awooddiisii maamul. waa argagaxday dadkii waa kala yaacay waxaan u baranay maaha marka cid walba aqli leh way ka dareemi karaan way ka dhaadhacsan tahay wax bulshada khalkhal lagu galinayo ama dib u dhac saameyn Jubbaland ay ku yeelanayso inay qof walba uu dareemi karaa laakiin alxamdulillah halkeeda ka soconaysa insha Allah. waxaan Kismaayo u aaday inaan ifiyo nabadda iyo horumarka ka jira Soomaaliya balse waxaan ka soo noqday aniga oo gaaray gunaanad kale. Hodan Naaleeye waxay rajaynaysaa inay aragto Soomaaliya oo dhan oo ku midowda nabad. waxay ila tahay riyadaas inay la dhimato iyada. muxuu noqon mustaqbalka dalkayga uu dhiigu ku daadanayo.